السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذا جنا قليال حيث أنا وحيث اللايف أو weekly analyze أو أنقاذنا week والبا بالله سهرة نقول ديبو إجنا أو ركاب كسمعنا وحيابي سوق كذا week هرة سيدا كليتنا week كان نجست موف وحنا مقنع عن كفلنا نقول سليه جدا إن شاء الله. ويجا هراء وحن ديرة كسرنا العجاء هيانكا ويجا من كروسس كأميس كنوسارن وعسليه جدنا لقاقة هيجا معقول ككا العجاء كروسس إن شاء الله. perfect. هذا طبعا هاي ويجا هراء ويجي كسي هراء وفي الفيديو ده أنت كجران أو يوتيوب بيج كاميرا كاتيماتي مركزي جوت ويب سايت كا qaybtan resources ka soo rosanaysa weekly forex and commodities analyze inta waxa ku jira marka fiidiyoyo hore loo duubay ama week kasta inta la soo galiya kuwan oo kale waa lacagihii yeenka week horeeto before and after toodi waaye oo lacagaha wuxuu noqonayaa this not signal ma ahan oo because signal waxa la yiraahdaa markii lagu siiyo entry-ga iyo SL-ka iyo target-ka waxyaabahaas kan waa only direction anaga signal ma bixino signal providers ma yihiin لكن وحاجرة كلية أونلي مركان حسدان قاعدين إنه direction كلية بيننا وقف كأنت المهم إنه استراتيجية أو استعماله وحبنا يمجلين لكن أنا أهم سيستم إنه قار علينا كتير قرينا سيدا كلية ترى محمد بحنا جارتس كسوق عم يجيبين كسوق وهذا دي ماشان registration كا حد كارك دونتا features فرابلان أو سيد وعد كيف سكرتيد sida kan oo kale brogan waxaad ka helaysaa 12 lacagood 1 hour justice-kooda oo maalin kasta la soo beergareenayo jihada suuq u socda macnaha suuq ama up ama down ama waxa waaye range ku jira asagoo level gareysan 4 hour jadki daily weekly counts-ka waxyaabahaas dhan waa waveski sidoo kale weekly technical video ayaad ka helaysaa baraga dad iibsatay oo caawa kale video waa la soo geliyaa oo suuqa lagu analyze gareenayo lacagaha la iska ilaalinayo lacagaha inay dhaqaaqaan macquulka yahay kan baroga waa intaas xaaladiisa laakiin premium-ka lacagaha ka badan waa 16 lacagood waaye waxay leeyihiin sequence reports oo lagu sheegayo lacag bilaa target-keeda meelaha gaari karto sidoo kale 1 hour-ka maalin kasta la soo gelayaa 4 hour-ki daily weekly waxaas dhan way ku jiraan charts-ka impact bear technical video oo lacagaha saameynta lahaa la soo qaataa weekly technical video waa uu leeyahay oo week kasta asaga la soo geliyaa laakiin premium kan brog waxa uu dheeryahay live trader room oo ah in aad si toos ah u aragtid traderada qaabka loo qaadanayo sababta trade kan loo qaadanayo sida lagu keenay intaad ka helaysaa oo macallin ku sharaxayo fursadihii suuqa ee isla qaadanaysaan qaabka lagu keenado sidaa darteed marka labadan tool waxay ka caawinayaan inaad an strategy aad leedahay isticmaalaysid market structure ha noqoto ama classical patterns ka kaliya trade gradation ama maxaa la yiraahdaa supply and demand an strategy oo markaas lagu trade galay ama leadership naftirkeeda waxa jirta iyadoo system oo entry wax ku siinayo jiro oo lagu trade galayo waa ku isticmaali kartaa dhammaan waxaas because kuwan waajihooyinkay ku siinayaan suuqan direction-kiisa oo waliba waxaa lagu sii sheegaa waqtiyada gaagaaban fursadaad ka faa'iideysan kartid oo 1 hour-ki wixii ka hooseeya laakiin kuwa week 4 hour-ki daily-ga sidoo kale weekly-ga waxyaabahaas waa kala darajo waaye waa lagu tusinaa haddaad u baahan tahay short term waxaa lagu leeyahay fursadaha lacagahana diyaara kuwa long term lacagahana diyaara wixii dhammaan waa kala cad yihiin maaha wax isku qasan oo trade inta iska geshid aad iska dhex fadhiyaysid bas inta geshid meel laxaadan uga bixaysid adoo waxa u faa'iido ka sameynay marka wax kasta way kala cad yihiin insha Allah qof ku baahan kuwaas uu iibsan karaa hajir marka islaaciga kuwana oo qofkii haduu saddex loo isku iibsado discount loo sameynayo oo 10% ah laakiin premium-ka marka isku iibsado saddex bilood oo kale $54 laga qaado halkii bil kasta $20 inta laga qaado oo saddex bilood $60 laga qaadana marka kuwan qaabkaas ku anfacaya insha Allah oo systemka nidaamka arkaysa sidoo kale systemka anaga ku trade gareeno qaabka lagu trade gareena meesha ka arag doonta adoo kaaga haysta laakiin dadkaana waa si fahmaysa qaabka lagu trade gareenayo
laakiin integration waxaasna uu ku duwan yahay waxaa lagu baraa wayfit analyse-ki dhammaan wax kasta oo looga baahnaay sidoo kale istaraatiijiyadda anaga isticmaalno aa lagu baraa oo farta laga saaraa oo insha allah intaas marka laga soo tago waxaa jiro one-to-one training oo aan soo kordhinay mar dhow kana sidoo kale hal bilo soconaa macallinaha xiisad keliga kuu soo galaayo oo si fiican cilmigan ku bari doona koorsadan dhan adigana any question aad u baahan tahay weydiinaysaa macallin keliya kuma aana mantro ku yahay wax kasta aad u baahan tahay isaga ku fahansiin doona marka cilmiga laga soo tago qofka wuxuu u baahan yahay in laga dhiso cilmiga ama istaraatiijiyadda waxay tahay waa qayb yar oo kooban oo ah maxaa la yidhaahdaa qofka sida ugu fudud oo ku fahmi kara laakiin waxaa jira wax kasii sareeya risk managementiga waa qaybta ugu adag qofka in laga dhaadhici u baahan waxaa sii jira qofka in laga dhiso psychology ama mindsetka in laga dhiso oo qayb saddexaad ugu daran ah dadku oo qofka professional trainer uusan noqon karin ilaa darajadaas uu gaaro marka anaga waxaas in insha allah laga caawi doonaa oo xaaladaada macalinka si toos ula socon doona oo wax kasta oo aad u baahan tahay markaas ka caawi doona insha allah intaas markii laga soo tago aan dib u soo laabto oo view guud intaas ahayd marka qaybtan wigliga wiig kasta xilligan oo kale caawa kaleeto oo habeenka isniin soo galayso 2 saac bar ayaan soo galnaa xiisadda meesha aan lacagihii hore ka heli kartaa marka insha allah fiidiyowyada hore loo duubay waxaan dhan dad u baahan tahay sidoo kale youtube-ka xukumo si markasta fiideo lasoo geliya aad ula socotin insha allah intaas markaa ugu gudbo xiisaddan hore u galaa waxaan ku dhahay inuu fiideo u dheeraado ma rabo daan xiisaddan ugu gudbo wiigga hore lacagaha aan laas galayna bal isla eegno lacagtan waa lacagtii EuroJB way ahayd EuroJB waa wiigga hore dad xasuusataan waxaan ka filaynay inay soo daabato oo correctionkan kaliya ku filnaaday oo suuqan new cycle bilaabay new cycle-kaana marka dhex marayay oo hal mar buu soo dhaqaaqay bullback oo samaystay daadashadii aa dhinnayd marka daadashadan socotay wiigga hore inta inuu maraysay bullbackta Stefano u soo daatay kadib masiina yar oo qaatay masiinada markay wax yar dhamaato waxaan isku ogeyn inuu suuqan daato qaabkii dhacday qaabkaan filaynay waxaan u sii rajaynaynaa wiigan insha allah inuu sii daado lacagahan yanka waxaan u sii rajaynaynaa wiigan waqtiga doonaan inay bullback soo samayn karaan bullback soo sameeyaan kadib sii daataan it's possible sidoo kaleeto soo nasato wax yar kadib inay sii daataan anyway waa daadasho oo because waxaa socda markii big picture-ka la eegaya correction ayaa socda jihada waa bullish correction ayaa socda marka this one waa correctionkan still ma dhamaanin marka uu dhamaado long term waa bullish waa bullish daily wixii ka sareeya laakiin hadda correctionkii ayaa still socda oo dhamaanin daadashada marka still waxaan usii rajaynaynaa haduu alla yiraahdo waxaan usii rajaynaynaa in suuqan la sii daadiyo short terms oo warka wixii ka hooseeya haddaan imaado inay sii daataan daadasho lacagahan iska ilaali inaad waygaraysid khatartooday wataan awsiyaan sidoo kaleeto waxaan usii wiigga horetana waxaan beerishkana usoo analyse garaynay still inay sii daataan oo usii rajaynaynaa insha allah anina siina kasta oo suuqan sameeya kadib inuu sii daataan oo rajaynaynaa hadii istaraatiijiyadaada ku waafaqdo directionka waad haysataa fursad ahaan waa uga faa'iidaysan kartaa laakiin maaha signal waxaan aan bixinayno kadiyeen sidoo kaleeto wiigga horeeto way soo daadatay meeshaan maraysa wiigga hore dad xasuutaan ku dhawaad waxay soo daadatay 200 bay soo daadatay insha allah masiino kasta haddana haddii samayso inay sii daadato u rajaynaynaa anyway masiino kasta haddii samayso inay sii daadato educationka wuxuu ka caawinaa anay masiinooyinka aan suuqa sameynaya inaad fahantid waxa ay yihiin magacooda qaabka looga trade garay wax dhan qayba educationka lagu bartaa laakiin hadda haddaad aqoonin only aad isticmaalaysa istaraatiijiyad kale oo ku gaara directionku waa bearish dee fursad ahaan aad u heshid uga faa'iidaysa insha allah USDJPY lacagta kale iyaanka aan bearish ku filaynin waxaan loogaan inta ay taagan yihiin suuqan waa bullish iyagan in kor loo sii dhaqaajin rajaynayna insha allah laakiin loogan hadday jabiso sheekada way isku dayi doontaa laakiin loogan intaysan jabinin iyagan bullish aan u rajaynayna suuqan waa bullish
isku seel gareenin kusmeel xasaasi maraya ma kala cadda JBY also this correction kana ku filnaaday vegan si fiican inay darabin karayso insha Allah inay si darabin karayso masiina kasta ay soo samaysaa taasoo aan rajaynaynaa kooxdan inay is dhigto September inay is dhiibana rajaynaynaa insha Allah oo hiib loo geliyo oo si fiican u sii daataan waa perfect yanka intaas ugu gudbaa insha Allah waxaan galaa marka lacag weekend diradda inoo saaran oo ah crosseski shantan lacagooda ugu waaweyn dan ku bilaabo lacagta ugu horeysa waa euro JBP lacagta euro ila lacagta British pound lacagtan 11 September ka soo bilaabo ilaa hadda correction ay ku jirtaa correction kan still sida uu yahay inuu ku dhamaaday oo possible also waxa possible inuu suuqa new logan jabiyo inay start September isdiibaan waxa soo possible laakiin anaga aan rajaynayna anaga aan weekend waxaan rajaynaynaa inay wax yar soo daadato bearish laakiin logan ay saqaadin slow inay isdiibin kadib suuqan inuu bounce gareeyo marka in oo bounce gareeyo aynu rajaynaynaa insha Allah waa macquul ilaa weekend suuqa inuu sii daato oo isla weekend bounce kan uu sadicin laakiin still wax dhaqaaq yar oo dhiman oo hoose kadib suuqan bounce sameeyana insha Allah still correction kan complete maaha lacagta xigta waa pound New Zealand waxaan u rajaynaynaa insha Allah in kor loo sii qaado in kor loo sii rajaynaynaa abdullah in kor loo sii wado waa possible sida uu yahay inta suuqu ku soo daato meelaha yimaado kadib inuu bounce gareeyo laakiin ugu badanaynaa insha Allah kor loo rajaynaynaa noocan oo kale inuu kor iskaga sii socdo dhaqaaqo nasiino isku sii dhaqaaqo oo haygan oo qaadaday calaamad lahaan haygan inay isdiibaan haygan 22 October inay isdiibaan jihada waa bullish anyway waa sidaas before the wire afkirabo screenshot oo qaadan karaa JBUD sidoo kaleeta waa direction ka it's possible in uu suuqa oo wax noocan oo kale inta soo sameeyo kadib uu bounce sameeyo soo nasto kadib oo kursi aad laakiin uma badanayna waxaan u rajaynaynaa anaga ahaan kor loo sii dhaqaajiyo suuqan jihada waa isku seel gareenin it's dangerous ana la soo maraa isku seel gareenin JBUD waa bullish JBNZD waa bullish hadii istiraatiijiyada ku waafaqdo you can bullish it laakiin ma signal waxaan la socodana maahan waa in direction we provide in direction waxyaabo kale hadaad u baahan tahay cilmiga iyo trading sida loo qaadanayo waxyaabahaas qaybta education-ka iyo features-ka website-ka ayaad iibsan kartaa insha Allah intaas marka laga soo tago lacagta xigta waa euro AUD this correction inuu complete yahay ayaan u qaadanay insha Allah waxaan u rajaynaynaa ayna bullish isku seel gareenin it's possible correction kan inuu soo weynaado kadib uu suuqan kor u sii baxo laakiin uma badanayna anaga ahaan hortaas uu taagan yahay inuu kor ka sii aado ugu yaraan waxaan noocan soo sameeyo meelahan hoos inta yimaado waxaan noocan oo kale ah kadib uu bounce sameeyo macquul okay euro AUD waxaan dhahnay insha Allah bullish lacagahan crosseska anyway waa wada bullish insha Allah isku seel gareen hal lacag oo bearish ku dhimanaa jiro oo ah hal lacag oo bearish ku dhimanaa jiro euro JBP waan sheegnay laakiin ready ma aan inay bullish hadda aado laakiin saddexdan kale waa ready inay cross dhaqaaqaan dad istiraatiijiyada ku waafaqdo sadahan oo ugu faa'iideysan kartaa insha Allah perfect as long as taagan yihiin kooxahan dhan suuqaas waa bull insha Allah si confirmation fiican aad u heshid oo fursadahan aad ugu faa'iideysatid in ugu yaraan kooxdan ay dhiibaan insha Allah iska soo 22 October JBUD oo kale marka suuqa break ku sameeyo fursada ugu sii faa'iideyso euro AUD oo kale break marka ku sameeyso fursada ugu sii faa'iideyso anyway hadee hadda sida meeshan ay taagan tahay hadee system istiraatiijiyada ka siisa kan oo kale fiiri waxaan oo kale inaad
adu xisaabsanaysa possible baatan aad taqaanid oo kale inaad xisaabsanaysa macquul ah oo markay meelaha ku maraysa in break marka ku samaysaa daragtay inaad sii gashay maadaama system kale isticmaalaysa laakiin anaga noocaas uma trade gareeno anyway direction waa haysataa qaabka u galaysa ayaan insha Allah كوماسنتي جنا قليل إن أنت سبسوا كواجه على ويكان حين أقولنا ويجا حاجة يموقعك إن شاء الله كوماسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.